shaqaalooyinaha madaxtooyada afayeenkeennii horaan salaamayaa xuseen aadan cige afayeenka cusub baan soo dhaweynayaa waxaana dhammaantiin ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulley halkan waa laga wada hadlay agaasimayaashii hadlay agaasimo waaxidadii hadlayna waan aad baad iyaguna si fiican u hadleen way aragnimada waqtiga dheer ay soo joogeen madaxtooyada oo markii hore ahayd wasaarad imikana madaxtooyadii ah xuseen waxaan leeyahay maalin qof baa la soo dhaweeyaa maalin qof baa la sii sabotiyaa xusbiguna waa xusbigaaga xukuumaddan waa xukuumaddaadii afka madaxweynaha qofka ku hadlayana waa afkii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynuhu mucaarad iyo maxaafid waa madaxweynihiisii oo isagu ka gudbay heer madaxweynuhu xusbi ee waa heer dalka Soomaaliland madaxweynihiisii afayeenkuna isagoo afka ka jawaabaya afka madaxweynaha ku hadlaya waa afka qaranka Soomaaliland buu dadka kulay kula hadlaya xuseen muddadu halkan joogay iyo muddadu ka tirsanaa xukuumaddan maanta talad haysa xukuumaddii way isku dhiibeenuun halkii uun weli nagu joognaayay cid kale inaba soo dhexgelin kulay waxaan leeyahay waa afayeen si aad u qaaliya u soo shaqeeyay hadday imashada xukuumaddan cusub tahayna halkan adag galay hadday wada shaqeynta xukuumaddii hore tahayna aad iyo aad u shaqeeyo shaqadiisa mar walba u daacad ahaa kartideeda dadaalkeyga lahaa afayeennimaduna waa digreeto madaxweyne wasiirkuna digreeto buu kusoo baxaa mar walba dee afka madaxweynaha qofka ku hadlayaana waaba ka wada qaalisayaan u malaynaya dadkaba oo dee isagaaba afkii madaxweynaha ku hadlaya wasaaradda yare ganacsiguna waaba khatar oo dee wasiiradeedu haddana halkan unbay ya markaa waxaan leeyahay maxamuud naalkaas ugu dambeeyay xuseen naalkaa waa kii inooga tegay markaa kolley halkan maanta xilkan laydin magacaabay inaan la tirinaya anigu waxaan aaminsanahay xilka ugu sarreeyay qaranka qofka madaxweynaha qaranka ugu sarreeyay afkiisa ku hadlaya waxaan malaynayaa meel ka sarreysaba inaana jirin markaa waxaan leeyahay maxamuud waynu kugu soo dhaweynaynaa xuseenna waxaan leenahay intii aad wasaaradda markay dadku ay wada shaqeynayaan markii hore wasaarad bay noo had laakiin maanta waa madaxtooyadii dhammaantayo sidii wanaagsaneed inuu wada shaqeynay way dadku markay soo wada shaqeeyeen dadka kale way iska duwan yihiin way ka walaalaysan yihiin way is aqoon gaar isku leeyihiin waxaanu ku leenahay si aad iyo aad u qiimo la'aan kugu sabooteynaa marnaba maynaan kala tegin dhammaan Soomaaliland kala tegayn haddana marnaba maynaan kala tegin inagoo dadku waa iska duwanahay madaxtooyada shaqaalaha jooga iyo adiguna dadka kale waa iska xigtaan marka waxaan ku leenahay sababta fiican maxamuudna waxaan leenahay maxamuud waxaan ugu shaqeyn doonaa inaan agaasimihi guud ahay waaxda saxaafadduna ay tahay waaxaad iyo aad u howlkar ah waa saw naasir uga sheekeeyey waa waax habeen iyo dharaarba shaqeysa madaxtooyadu bay kastoo shaqadeedu anu maalintaan xilka tirsanayay waxaan islahaa dee maayarniman ka soo shaqeeyo meel yaro kooban baa timid inkastoo dee madaxtooyadii qaranka tahay dee anu haddana howlaha madaxweynuhu qabto waa u gaar waxaan lahaa inta yare agaasimada xafiisku wax badan noqon mayso laakiin maba lahaba mataqaanaa rawaxaadda ma leh waa madaxtooyadii qaranko waa shaqadeedu sibi haddana u ballaaranta marka waxaan leeyahay qolada waaxdaana si fiican baan uga mahad celinayaa si fiican ay u shaqeeyaan afayeenka cusubna waanu soo dhaweynaynaa shaqooyinkaad qaranka ka soo haysay baanu ognahay halgankaad xusbiga halkan maanta in la soo gaadho soo gashay baanu ognahay marka waxaan leenahay adigana maxamuud waanu ku soo dhaweynaynaa waanu kugu soo dhaweynayaa aad iyo aad baan ku salaamayaa